السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. isku soo noqod wacan oo wanaagsan saaxiibayaal meel walba oo aad dunida ka joogtaan iyo si walba oo codka idiin soo gaadhayo waa salaamantiin saaxiibayaal. intaas ka bacdi ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeena qisooyinka iyo talooyinka ahaa. waxaan saaka idinku hayaa 5 camal oo haddii aad samayso aan ku damaanad qaadayo in ilaahay cimrigaada iyo arsaaqadaada ku dheereynayo qadarkan ka hortagaya oo ilaahay quraanka oo kaga markhaati kacay nabiguna calayhi salaatu wassalaam uu axaadiistiisa ku cadeeyay. marka maxay yihiin balshataansi 5 camal lambar 1 iyo lambar 2 waan israacinayaa. لمبر كو إلى لمبر لبا والدعاء وبر الوالدين. سلمان بن فارس رضي الله تعالى عنه وحو النبي كسوري عليه الصلاة والسلام وحو النبي قولي لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر. رواه الترمذي. وحو النبي قولي قدر كمعليو ilaa ducada mooyaane cimrigana ma kordhiyo ilaa biriga mooyaane. macnaha waxa weeye qadarka kaliya waxa ka hortaga ducada, cimrigana waxa dheereeya biriga. qodobka saddexaad waa silatu raxiim, qaraabada oo la xiriiriyo. xadiis badan baa cadeynaysa fawada laga helo. hal xadiis baynu soo qaadanaynaa. أنس وحل سوري وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي يقولي من أحب قفك جعل أن يبسط له في رزقه إن أرزاق ديس الله بلاريو وينسأ له في أثره إمريكي سنة لو دبريو فليصل رحمه قرابة دي ساحريو. قضبك السدحات الصدقة دويان. قال وحو النبي يقول عليه الصلاة والسلام إن صدقة المرء المسلم صدقة قف كمسلم كي أو بحياب النبي يقول تزيد في العمر عمرك ديريسا وسيادسا أو بركيسا وتمنع ميتة السوء قيرد حنة ويكهر تكتا ويذهب الله عز وجل بها الفقر والكبر. إلهينا وحكوك حياة كبيرك يا فقرك وإلهي جل وعلا كغبابية. قضبك شنادي ودن بيا التسبيح الله جل وعلا، وإن إلهي الله تسبيح صدو. ووحي نقول دليل قصة نبينا يونس عليه الصلاة والسلام مركي تلكي أي أمركي سيديدين وعرض ضي وبضف متقانا قلي دون وفولي دون تمركي بحسنتي قرع على قلي لو قري توري qorituurkii isaga uu ku dhacay kadib markii qorituurkii uu isaga ku dhacay ayaa badda lagu tuuray. xood weyn ayuu ku dhex dhacay oo liqay. yana warku ugu daalinay camalkii kale hatay ku badbaaday wuxuu ahaa tasbiixda ilaahay. wuxuu ilaahay yidhi isagoo qisada inooga warramaya falowlaa annahu kaana min almusabbixiin lalabitha fii batnihi ilaa yowmi yubcathuun. hadduuna noo tasbiixsan lahayn calooshiisu ku nagaadi lahay la qiyaamaha. marka tasbiixdu faa'iidooyinkaasi leedahay. marka walaalayaal iyo saaxiibayaal acmaashaasi waa acmaal run ahaantii haddaad samayso si xaqiiqana weliba yaqiin adoo ku kalsoon oo aaminsan haddii aad samayso aad helayso ballanqaadka ilaahay iyo nabigiisu calayhi salaatu wasalaam ay ballanqaadeen. dadkuna waxay ugu jecel yihiin arsaaqada oo loo kordhiyo iyo cimriga loo dheereeyo. xaqiiqatan waynu wada jecellahay. waxaannu ku helaynaa oo camalka wanaagsan oo aynu samayno. waxaan kaloo nagu daraya walaalayaal qaraabada xidhiidhinteedu macnaheedu maaha markay ku xidhiidhiyaan inaad xidhiidhiso, markay ku jiraan inaad jarto maaha. macnaheedu
waa markay ku xidhiidhiyaan xidhiidhi markay ku jiraan xidhiidhi haddii kale oo markay ku xidhiidhiyaan un aad xidhiidhiso markay ku jiraan aad jarto in abaal u gudayaa tahay yani xidhiidhinaya ma tihid ugu dambeyntii saaxiibayaal aad iyo aad baad u mahadsantihiin hadduu videogaad ka heshay like saar hadduu ku anfacayna sii sheer gare subscribe-ta iyo like-ta iyo share-ku xaggeen wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakatuh